شكرا إلهي خير بدنها كرسي ميسانك حسنات كان الله كوسار الشيخنا أن ولا ينا وحنا كل جيسنيان إن شاء الله إلهينا ميسانك حسنات كوسار يجنا كوي ماركتي أي أصحاب الثلاثة أد ماركتي أد سوتشي سي يو أن نقدم بإلهي هنا جوده دقو الشيخ أن ولا شنو وحيله ده هاي أن ولا شيء ده يجوين عرض النوع هيد وحي نولت مي ولا قريب يكروا والدكين إن بدن السبعين أجنبية المدة بعدي نكى أجنبيها قبل والسي وين جورستي ربنا وحقوق إرساق إلى بويل وين النجالتك وين النجارين وستيت كي أنا تشوفني نستيت كلي سلادين حتى عدينكي مدة بعد ولا شيء وانو ويني طابك أي ماركتي ونشاي ورهين تيري مدنا نكي مدة مركان نجمع غناء عنيجي أو ماركتي ولا شيء كل شيء أي والد كي تري مركان نوجاني ستيت كي يكونوا لين وانو تيجي مدة للصون ولا شيء عادي وحين ده يجي المدة وقدم ما يسي نرشة يكون نرشة ولا شيء يطلع بدي ويل ولا قطعتي مركي أي ماركتي يدي السيجي دي كوجل درستين يتوع عنو فرصدان يدينا دراجة دبتي كدي نكين الدين تي كنقضي حالة عدق بولا شيء كتيرتا أو هنتي جرم دباهن سيان وبصارنا إلا هذا نجي قان عدق ونقاضن كريلانا وايو قولي دراجة دبتي بينقطي إسلا مركا هذا نكي ويربتاولي نكي دينا وربا أننا وحانو ujeednaa in gabadha xaaladda ay ku sugan tahay mid gurmad u baahan inay tahay sheekh noo nasteexe ilaahay khayr badan ha ku siiyo sidee baanu yeelaa maxaad nagula talin lahayd family ahaan bay gabadhaas leedahay soo sheekh khayr badan Allah ku siiyo alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمهانتي وحالد حنون بدن قلبي جيجنا runtii dhaawac gaarsiisay markii hore hadalka qaybtiisa hore marka uu walaal dareen waday nin ajnabi abay guursatay oo nin muslima ajnabi Soomaali ma aha min hada alqabiil laakiin waxa weeyaan waa muslim alxamdulillah waa wax maxaliya tala laga bixin karay laakiin musiibada ugu weyn iyo dharbaaxada ugu weyn iyo khatarta ugu weyn waa inayna gabadhii ninna haynin caruurna haynin nafteedina aynan haynin saddexdaa arrimood ehella aynan haynin gabadhii ehel ma hayso oo awlaad ma hayso oo nin ma hayso oo diinteedii baa khatar ku jirta oo nafteedii ma hayso afar arrimood oo khatar ah oo weliba midda diinta ugu daran tahay ayaa horta meesha ka muuqda horta reerka waan oga xaqiiqatan waan oga naxayaa xanuunka qof walba muslim ahuna u soo ducee maxaa yeelay waa gabadhaadi oo kale waa walaasha oo kale waa hooyada oo kale waa eedada oo kale waa habaryartaas oo kale runtii shucuur adag bay ugu beertay arrintaas ayada ah ama talada idin siinayo waxaa weeye ka hor waxaan rabaa intaan idinka tala idin siinin arrintani waxay darsi iyo cashir lama iloobaana u tahay gabdhaha Soomaaliyeed in badan ka carara walaalahoodii Soomaaliyeed ma aniga nin Soomaali ah guursanaya jacaylba ma yaqaanaan ragga Soomaaliyeed halkaasay gabdhihii taagan yihiin jacayl ma yaqaanaan ragga Soomaaliyeed anigu nin ajnabi abaan rabaa horta darsi iyo cashir badan bay u tahay kuwa badanna waanu haynaa oo noocan oo kala ah nin baa intuu gabar Soomaaliyeed naga guursaday ayaanu ku niri wuu dilay aad buu u dilaa markaasana war gabadha maxaad u dilaysaa oo maxaan u dili way quraankayba ku taala dumarka in la tumo buu yiri marka dad fahamku ku wada qalluucan yahay oo laga yaabo islaamnimadoodu inayna si toos halkanagan nin islaamay oo saddex gabdhood oo Soomaali ah guursaday waa kii maalinta dambe jaajuus noqday maxalliga muslimiinta laayay waad maqasheen baan u malaynayaa wasaa'il islaamka waad ka maqasheen meeqa intay islaamka soo galaan u soo gala jaajuusnimo
meeqa ayaa inay dhaqaalo ku helaan u soo gala kadibna ridoobo islaamka dib ooga noqda. arrinkaasi cashir waxay u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee soo joogsada laga waayay. horta qofka soo joogsa laga waayay waxaa la yiraahdaa maxaa la soo jiiftaa laga helaa, saasay Soomaalidu dhahdaa. horta arrintaasi horta cashir ha u noqotaan rabaa inaan dhaho mar koobaad biidnillaahi tabaaraka wa tacaala, ayadoo qofka muslimka ah haddana muslimnimo lagu guursan karo. laakiin war dadkaani xaalkoodu ma taqaanaan. Soomaali waa muslimiin. haddaad shalay aragteen mid meelaha Sweden ka hadlayso waan gaalooba dhahaysa, mid Holland ka hadlaysa waan gaalooba dhahaysa, iyo waxaasi waxa weeyaan waa wax aan la tirinaynin. xugun ma leh. ummadda Soomaaliyeed waa muslimiin waay. hadda ninka Soomaaliyeed guursato hadduu kugu xumaado xataa waa la yaqaanaa mee wuxuu galo iyo wuxuu gudo iyo meeshuu dego, min raas Kambooni iyo raas Casayr. ama haddii aan reerka u soo noqdo, tala ahaan waxaan dhihi lahaa horta gabadhaasi aad u badbaadin lahaydeen lug iyo farasba horta u gala, soo sasaba, saad guriga u keeni lahaydeen ka shaqeeya. bar horta carruurba ha la gaaro. waxaan ka hadlayo waa nafteeda, waayo nin ridoobay bay rabtaa. macnaheedu miyay ridowday ayadiina khatar weeye, oo ma islaamkii bay ka baxday. qof ridoobay oo islaamka ka baxay qofka raba ma ahane waa alkoholigo, waxa weeyaan ismaba ogo. nafteeda in la badbaadiyay u baahan tahay. marka gabadhaas si aad yeeshaanba hortaa si uun u soo sasaba biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. ama caafimaad ku soo sasaboo dhakhtar baan ku geynaynaa dhaha, ama ilmahaagii baan kula raadinaynaa dhaha. laakiin mar alla markii ay gacanta idiin soo gasho, isku daya in aad meel muslima geyn kartaan. dariiqa ugu roon horta waa dariiqa inaad waddan muslim geyn kartaan, oo gabadhan diinteeda iyo maxaa la yidhahdaa nafteedaba in la badbaadiyo mudan awlaaday dhashay iska badaaye. horta middaa ku talagala biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. tala kaloon ka bixin karo aniga mas'alada iima muuqatee waxaa ii muuqata inaad ku dadaashaan sidii uun gabadhaasi hooyanimo iyo walaalnimo iyo qaraabanimo iyo mar aynan ay degantoo maskaxdeedu ay joogto awlaadeeda ka soo gala waan kula gurmanaynaa. Soomaali oo dhan baa ku gurmanaysa wax lagu soo sasababa. gabadhaas sidii ninkaas ridoobay looga soo badbaadin lahaa, nafteedana loo badbaadin lahaa, ku talagala. ilaahayna waxaa idinka baryayaa tabaaraka wa tacaala muslimiinta qolka ku jirtana inay aamiin u dhahdaan rajaynayaaye, inuu ilaahay qalbigeeda gabadhaa loo soo jeediyo, xumaantana uu ka tirtiro, awlaadeediina ayagoo nabada uu u soo celiyo tabaaraka wa tacaala. ninkana hadduu ilaahay hanuun la doonay ilaahay inuu diinta ku soo celiyo tabaaraka wa tacaala. haddii kalena gabadhaa iyo waxay dhashay sharkooda ilaahay inuu ka xijaabo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. innahu waliyu dalika waalqaadiru calayh. wajazaakum allah khayran.